madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa magaalada Berbera kaga qayb galay ololaha xisbiga Kulmiye. Kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga Kulmiye ayaa iyagu halkaasi iskugu soo baxay fagaaraha khayriyaha ee magaalada Berbera, waxaana halkaasi ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda, guddida ololaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Saaxiil, maamulka heer deegaan iyo heer gobol, waqaal waxgarad iyo marti sharaf kale oo tiro badan. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka kaambeynka ee gobolka Saaxiil, xildhibaan Jaamac Maxamed Jaamac Maaf. tuulona halkan laga xukumay degmooyin ku jiraan dhammaantoodna waxaa ka dhacday munaasabad tan la mida mudane madaxweyne waxaan doonayaa inaan kula wadaagno shacabkii berberi warkaa muuse rabaan soo muuse ma rabtaan madaxweyne annaga dadkii kaasuu naga yahay codkoodiina waa naga diyaar dhammaan shacabweynaha reer Saaxiil runtii maanta waxay muujiyeen madaxweyne inay u diyaar yihiin xisbigii Kulmiye inay mar kale u cumaamadaan inay mar kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ku soo celiyaan sida maaha kala garo bulshooy gudcurkiya caddada kaan gibin lahayn goobta cugashada codka geynaysaan gadaaliyuu ka noqon leeli goobale dad ku lumay duufka deediyo kale garta baan idin leeyahay halkaa u codeeysaan xisbiga Kulmiye ha guulaysto madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ha guulaysto innaga waxay naga xaaraana dhaleecaynta iyo wax ka sheega ciidanka qaranka waa jirkeennii ciidanka qaranka ha guulaystaan inamada halkan la soo istaagaya heesaha lagu dhaleecaynayo ciidanka qaranka waxaan leenahay weer berberaha ku soo noqonina soo saamaha xisbiga Kulmiye waynu ku balaadnay qofka reer berberi saacad gudaheed wax ka yar buu Hargeysa ku tagaa Burcana ku tagaa soo maaha mashruuciigu weynaaye xisbiga Kulmiye gudbiyey ee DP World soo kumaynaan baraarin waxaynu kala garanaynaa haddaynu reer berberahay habeenkii maalinta soo maaha xisbiga caayimayno madaxweynahooda ay wataan iyo maxaa barnaamijyadooda ay wataan ee la doonayaan madaxweynaha waxba ka sheegi mayno waxay wadanaa madaxweyne waxay dhisaynaa madaxweyne waxay noo barinaa codka iyo bareeqaadkeeda bari samaysay sasma maaha allahu akbar gobolka Saaxiil guud ahaan degmada Berbera maanta wacdaraha loo kala harin ee ay muujisay taageerada u hayso musharaxa xisbiga Kulmiye iyo musharaxa ku-xigeenka madaxweyne dadweynaha gobolka Saaxiil waa daynabadii xisbiga Kulmiye waxaynu ognahay safarkii madaxweynuhu ku maray guud ahaan waddanka ee loo bixiyey safarkii guusha ee ka bilaabmay gobolka Saaxiil reer Saaxiil bay ahaayeen kuwii shamcii ugu horreeyey daaray dekeda Berbera oo aad iyo aad leeyahay cusubada laga dhisay reer Berbera marka runta isu sheegno leyrka Hargeysa leyrka Berbera way kala jaban waxaa jaban leyrka Berbera xisaabta marka la sheego weeyaan wax badan waddanka dheertii baa jira aniguna waan iyo hore idinku doonayay macaaliyo. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa xisbiga Kulmiye, waxaana bulshada reer Berbera ka codsaday inay codkooda siiyaan يا قدري يكن تعال يرانا وقت وسيانا عادي آخر المحطة يا يذكر يذكر كل يوم الماتا أنت أي وقت قاتلنا هذا دور هذا وحنا يا بربرا إلى كم مرة أفسك أكون هذا هذا مية مية هذا وقفنا نفتي سيدا ما في سفرية أهلي الله يقول لنا مثال وحنا يوم هذا إلى تيف وسيل والبربر ما تتعيش صاحب دولة وقلت كم العلم غير وقته وأي آمتين وحديث ترسيب وجوه وما شاء سوق أحوال دكتة ذكر حقين شوية دكتة غير ما تنبض دكتة أفريقيا اليوم أولاً نبوك عدة شيء يا كلام يا فكرة يا هنجي حزب الكلية يا شعب الصومال يا نسبة الصومال
oo adeerkayga waa meel ka jooga oo arrintaan layga maqlo ta kale haddii adigii u codaynayay ee ii dadaalaya aad daawacanto ama aad ku dhimato codayn weydo soo khasaare maaha soo taas yaraayaa marka hore kaarka ilaaliyaa leeyahay nafiida ilaaliyaa leeyahay xamse jaamac yare telefishinka caalamiga Sky Cable TV magaalada Berbera.